magaalada Gaalkacyo waayihii dambe lagu arkay jawi ka duwan marxaladihii lagu yaqaanay kadib markii shacabka ay fahmeen muhiimadda nabadda iyo isfahamka uu leeyahay isla markaana colaadda aysan dani ugu jirin labada shacab ayaa haddana waxaa saaki Gaalkacyo mar qura laga dareemay isu soo bax nabadeed oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada iyo ardada wax ka baratay iskuulada ku yaala koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo kuwaasoo ku qeylinaya eriyo nabadeed oo ay ku dalbanayeen Gaalkacyo aysan colaad xamili karin loona baahan yahay in loo hiiliyo nabadda Gaalkacyo iyagoona socod dheer ku soo maray wadooyinka koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ardayda waxay garatay odayaasha garawaaya nabadda ardayda raadin waysa dadka Soomaaliyeed waa garawaaya ilaahay waxa ka barinayno ilaahay nabadda siiyo ilaahay waxa ka barinayno dibadbaxan ayaa waxa uu ka duunaa banaanbaxyadii ka dhici jiray magaalada Gaalkacyo maadaama ay soo qaban qaabiyeen madal ay ku midoobeen dhalinta reer Gaalkacyo kuwaasoo maalmihii ugu dambeysay dhaxda u xirtay sidii Gaalkacyo la iskugu furi lahaa meeshana looga saari lahaa arinta qadka cagaaran sida ay sheegeen qaar ka mid ah dhalinta reer Gaalkacyo saaka waxaan qaadnay beentii oo la jidhay labada maamul dhexdooda Gaalkacyo dhexdooda beentii dhexdooda la jidhay baan qaadnay maanta labadan ma oran karno Gaalkacyo la yiraahdaa maamul waa leenahay laakiin bulshadu waa hal bulsho waa bulshadii Gaalkacyo dhalinyaradu waa dhalinyaradii Gaalkacyo 75 waa dhalinyaro Soomaaliya haddii 35 finawadayaal iyo dad kale isugu jira ay naga awood badiyaan suurtagal ka dhac waraan nabad u istaagna Soomaalida la yiraahdo Soomaali ha noolaad maanta waxa indhahay u jeedaanin xaqiiqdii waxa maanta muuqatay shacabka Gaalkacyo sida ay u doonayaan in nabadgelyada iyo xasiloonida walaalnimada iyo wada noolaanshaha sida doonayaan ayaa muuqatay waxaan fariin rabaa inaan maanta u faro kuwa colaadda ka shaqeynaya kuwa ummadda kala qaybinaya kuwa ka shaqeynaya inaan la isu gudbin inaan ummadda wax kala qaadan inaan la isu gudbin ka shaqeynaya waxaan leenahay ogaada haddaad colaad ka shaqeysaan idinka ayaa ku dhimanaya tii aakhirana waa idin dambaysaa magaalo kaliya oo noqotay laba gobol oo loo kala dhoofayo camal waxa dhacday qofka labada u kala socda labada gidi inay u fududahay inuu xamar aado ama Hargeysa u aado waa cuqdad raagtay waa isbaaro qalbiga ah waa qashinimo naga buuxda hal laga xoroobo arinta ayada ah waxaan kugu bishaareynaya hadda ku dhimataan wadada ah ku socotaan shuhadaaba tihiin jannada galeysaan insha Allah taala saas weeye duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo ka hadlay dibadbaxaasi nabadeed ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan sida ay u arkaan Gaalkacyana mid bay noqonaysaa ma kala xirnaanayso lama arko cid laga yeeli doono maalin ay dhamaataba maalin bay dhamaanaysaa nalama kala celin karayo cidna laga yeeli maayo dadkaan inuu kala xirnaado banina kuma jirto ma nagu raacsantiin dibadbaxan maanta ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa uu yahay mid looga hadlay xaaladda guud ee nabadgelyada gobolka Mudug oo muddooyinkii dambe odayaasha dhaqanka ay wadeen dadaal ay ku doonayaan inay ku xaliyaan nabadda iyo dib u heshiisiinta gobolka Mudug waxaana dibadbaxan maanta uu yahay dibadbixii ugu horeeyay dhalinyarada reer Gaalkacyo ay ku muujiyeen sida ay ugu xun yihiin colaadaha inta badan ku soo laalaabtay miyiga gobolka Mudug Libna Cajiib Xaaji TV Universal Gaalkacyo